ومن لما ولا لما موافقة أي قد أحضر إنه يصلي إسقليان وقعدت إسبريان واحد مال أنت اللي وفريستي أما لقت الشذي أما النظيف أم بيتشجرينه أما الدولة النظيف أم وحكو سمينه أما حتى بصدق أيام أو أنت اللي لقت الشذي جارس أما نيروبي لقت الشذي مجرد وأنا قاعد مش ما قطر إيمان سقط ومنت الإم سي جارس كاونت أسمبلي ماشي ما أنت حوم صفريستي إن وحير والباهين كبحيو arrimaha baraha bulshada taalo 4 saac ee la soo dhaafay arrimahaas oo ay yihiin maamul ama nidaam MCS ka ay wataan MCS ka qorshaha hadda ay ku dhex jiraan ama socdaalka hadda ay wadaan MCS oo qoys oo deegaanka gaaris ka mid ah oo maartay Nairobi iyo meelahaas fadhiya ku degan hayaan fadhigaas ma aho siyaasadna ma aha xumaanna ma aha dulana ma aha maxaan rabaa maanta inaan ka shaqeeyo meeshan aan dadweynaha reer Gaaris aan u sheego MCS ka khiyaar bay leeyihiin waa dad madax oo la soo doortay fursad weyn way haystaan oo awood buuxda leh oo dadweynahoodana siiyay dastuurka wadankan uu siiyay markay saasto fursad ay haysteen ayaga naftirkooda kuma sii xadgudbayaan laakiin wixii nidaam oo sharci uu dhigayo ama ay rusqad u leeyihiin oo ku soo kooban bay horta ay ku ekaanayaan marka ragga asaga wiilasha ay gabdhahaas iyaga arrin qoys ku saabsan bay horta ka socdaan qoyska ay ka socdaanna waa qoys ay ka dhasheen oo ayaga uu fasaxay oo la dheebal arrimahan hadda idinka wax ka qaban kartiin bal kac law 4 saac la soo dhaafay social media waxa hadda la soo galgalinayay oo suxmad darrada oo xumaan ku jirto oo si martay nidaam aan ahayn oo sharafna aan ahayn reer Gaarisna aan sharaf u ahayn mid walaal iyo mid tolnimana aan ku jirin maxayaan rabnaa hadda meeshan ka cambaareyno arrinta arrin hirgeli karto ma aha waa arrin ceeb sharci islaamkana ma dhigayo qofka islaamka muslimka la dulmo ma dhigayo way dad islaam baan ahay diin baan reebtaa xad baan leenahay MCS ka dantooda u socdaan oo walaalahooda la kulmayaan ama qoyskooda midnimada iyo walaalnimada iyo muwaafaqada arrin ka hadlayaan oo ilaa qoysaskii hadda Gaaris jamac gabigeedu cid kasta meeshan Soomaali Maxamed Gaaris way degan cid kastana siyaasad bay gashay way ka soo baxday siyaasadda markay ka soo baxday kumanaan siyaasadda isku raaceen kumanaan way ku xumaadeen oo way ku dhabar jabeen marka waxay ku tusanaysaa qoys kasta wuu ku dhex jira hal iyo laba oo xumaanti qabo siyaasadda wali ku jirto uu jira soo nimankan socdaalkooda kama aha reebel baan la kulmi rabnaa iyo reebel baan wax ku sameeynaynaa iyo reebel baan yaan dulmi rabnaa iyo arrinta meesh bataan socdaalkooda wuxuu ku egyahay موافقة iyo midnimo iyo walaalnimo iyo isku keenis iyo isku maado iyo wala hadal oo rajeedada maxay tahay sidii siyaasadda looga soo gadoomay in badan baa xumaanta qabta ama siyaasadda xumaanteeda la jiifta in walaal baliye tol baliye dad islaam baliye gacanta la ismariyo oo la wala hadlo oo xagga saliga la isgaliyo la iscafiyo yaa ku jirta marka adiga maanta ama dawlad ahow ama dawlad ha ahaan banaanka joog oo macaarig ahow aday ku tala laakiin maxaad ogaataa gadaashaada waxaad uga soo tagtay ma sahlana adiga naftirkaada hadda dawlad oo hata gadaashaada ma sahlan ilaa tolkaada in baa adiga ma ku raacsan ama aan ku raacsanin in baa xumaan la jiifta marka in la isku noqdo la iscafiyo oo la wada hadlo bay horta nidaamka iyo diinta islaamka ayna dhigaysaa marka nimankan waxa ay socdaalkooda uu ku kooban yahay waa un intaas walaalkii inay isku keenaan oo lis cafiyo oo saliga lis geliyo oo muwaafaqo qoys iyo midnimadeed la doono oo wala hadal tol la doono oo tolku u wala fariisto oo tolku shaa u wala cabo oo walaal la noqdo oo dadkii siyaasadda ku kala tagay la isku keeno la isku saban xiro intaan baa horta loo socdo social media ma la booday wiilal meeshan oo waxba u fiirsanaynin ba iska soo qorayaan ama qoyska ha noqdaan ama qoyska ha noqdaan Soomaali ninkay rabaan ha ka noqdaan haday rabaan madow ha noqdaan laakiin inta iska soo qortiin suxmadii wiilashaas iyo gabdhahaas MCS
oo idinka nila dhasheen oo reer gaaris inaad suxmadooda helaysiin oo haddii nimanka meesha fadhiyaan qoosebel baa maanta meesha fadhiya shirkaale waxaa loo fadhiyaa impeachment aa la soo wada oo gafanaga gaaris baraasabaha loo jeeda oo lagu dulmi raba in la dhaho oo qooskiina magaca laga halayo oo nimankii madaxdiina magaca laga halayo oo cid iyo waxba ku dirsanan oo dad walaal oo waxba ku dhiman in nin madax waxba ku dhiman oo meel iska fadhi inaad ku durunto magaciisa dariiq lagu jiido oo la dhaho qooskaas ku tashanaya horta arrin foolxumo ah waay sida awgeed anaga waxaan rabaa meesha idinka sheego MCS-ka qooskooda iyo hoose wala hadalka mooyaane wax kale oo dheeraad u sii raacsan ma jiro arrintay u socdaan waa midda idin sheegay waa midnimo iyo walaalnimo iyo muwaafaqo iyo iyaga dhexdooda inay salli isgeliyaan oo gacanta isbariyaan wax meel inta lagu fariistay ama laga tashaday ama nadiif aan impeach garayno ama dowladda nadiif aan wax ku samayno ama hataa sidan aan yeelno oo inta looga tashaday gaaris ama Nairobi laga tashaday ma jirto maxaysan u jirin MCS ka kuwa Nairobi jiraan habeen walba forum-ka ku wada hadalna meeting hadda udgoon iyada organize garaysay a week ago bay nala tahay invitation udgoon oo fursad loo waayay kadib waa gabadhayna waa gabar reer gaaris oo walaashayn maadaama ay soo codsateen in lala kulmo invitation dadka islaamka hadaan taho oo qofka kusoo casuumo inaad ajiibto oo tagto waa sharci islaamka waa ku qasbantahay ilaa dad islaam baan haddii la ajiibo loo tagay wala hadalka meeshuu ka bilowday oo madaxdii la kulmay hadda odayaashii former MPs la kulmay professionals amaad la kulmay hatta former governor waa la maray asag naftirkii nin dhibka ku dhacay waaye walaalo tii ka bogso waxba xumaan hanoo qaada waaye tad dambe ilaahay bay u tahay ama lagu tashado ama lagu tashan it's not must in aadii lagu dabtaagna maanta laakiin muhiimadda waxaa way nadiif jaamac dowladdiisa qoos anaga aan ka dhalanay aniga khaasatan aan ka dhashay MCS-kan ay ka imaadeen wax dulun oo xumaan oo anagana dhex taalo ma laho waxa uu dhimahaynana ma laho dowladda nadiif ninka dood ka qabo anaga dood kama qabno kamana wadno waayo maanta dowladdan ay dhalatay oo anaga ilaahay baa na kulmiyay ballan maana dhiganin aan soo galnay geedka anaga geedka caawda boqor amar waxay nagala siiyay dowladda inaan la shaqeeyo former governor amar wuxuu ku bixiyay nimayow aan daraaday dadka ha u dulmina أنا وان قلبت مسلم هادول منه بلنتي بقى قادنا تينا وأوفنينا شنطة سرع نظيف أنا وان قرب تاجنا هاي أصلا يقطع له هادو أصلا دول منها قالوا أصلا إلى يجيس هادو وحنا كمان كرا كمان دركت ما ده بيناين وان بريا ولا لو بالين هري هبينا ولا فريسنا وان لا تشنا واحد بدن بهذا النوع قرشيسن ولا هذا البدن بهذا النوع حيح نظيف بلن نجا قاعد حيارة يريرو وسوس وجره بلن نجا قاعد إنه أنا كنت نلا فريستو وحي عم وفرسمين كرو ونو فرسمين oo la fariisano oo wuxuu qooskan xaq u leeyahay oo dawladda barkeeda soo jiro inuu ka hagranaynin habeen uu ka reebanaynin xaqayna uu miiska soo saaray wixii xaq u leeyahay dastuur baa jira sharci baa jira nidaam baa jira laakiin intaan nidaam la gaarin walaalnimadii iyo muwaafaqadii iyo midnimadii tole ana kamaana dharkin marka ninkan waxaan ugu tagno kama waynayno ballanna waynoo noo qaaday MCA-sha wali way sugayaan gambar ay ugu fadhiyaan nadiif anagu wuu noo riman wuu noo soo socdaa markuu noo amaado anagu wixii uu noogu maqna wuu noo keen haddii intaa wax ka badan oo colaad uu jiro oo cabaado uu jiro anaga dadweynaha u bandhigaya war dhibkan ana haystaa waa nagula dhigay qaniijada jirtaa wixii wuu noo horgal waayo ogaadaan dhayna laakiin intay meesha gaarin inay dhalinyaro social media war baan geliyaan oo MCS magaca ka hadlayaan oo nimanka baa meel fariisteen dhahaan iyo dad baa yeelaya arrinta ma jirto dadweynaha waxa idin sheegay ninkii isaga xumaan qabo ama ba laga yaabo in arrin kale uu hoosta ku watay oo nadiif si kale u maagan iyo MCS lagu ugu soo laabanay MCS lagu hayaa lagu maranin ninkii wax wato oo qorshe wato nadiif inuu arrintiisa wax ka hadlayo u jeedo banaanka la soo istaago anagana waa un ogaanayna gaarisna waa un la barjooga laakiin qoos ahaan wax xumaan oo na dhaxmari karta ciidan walaalahan ma jirto wax habeen aan ugu barinahaynana ma laho wixii uu nidaam sharci uu noo diidana ma rabno wixii xaq aan u leenahayna wuu na siin ilaa xaqayna ku maqan wax uu naga reeban heena ma jirto dawladda hore ani baan ku jiray xaq walaalay ay ku lahaayeen way qaadanayeen dheeraad bay ku dirsanayeen walaalnimay loogu sii diray anagana meesha iidaad bay noo taagayeen wax xumaan ay noo dhimahayaan ma jirto waxaan rabaa inaan meeshan ka sheego dadka qooska caawda aan ahayn oo warkan beenta baafinahayo oo walaalahan isku dirahayo anaga arrinta kuma faraxsanin dad islaam hadaad tihiin
oo towxiidsanay fidmada aa wadaan oo gaaris aa isku maleegaysiin hala joojiyo